habeen wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka caawiraadiyaha wadaagay muqdisheedii haya waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo shaaciyay sababta dib loogu dhigay shirkii Muqdisho ay kula lahaayeen madaxweyne Farmaajo cabsi la xiriirta fatahaada webiga Shabeelle oo ka taagan xaafada ka tirsan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ardaygii galay kaalinta koobaad ee imtixaanaadka dowladda Soomaaliya ay qaadayso oo ka socday iskuulka Jaabir bin Xayaan oo ka hadlay dareenkiisa wasaaradda waxbarashada ee dowladda Soomaaliya oo shaacisay natiijada imtixaanaadka dugsiga sare ee dalka maamul goboleedka Galmudug oo faahfaahin ka bixiyay dagaallo saacadii la soo dhaafay ka dhacay deegaanada ka tirsan maamulkaasi dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dad badan ay ka bogsoodeen cudurka COVID-19 al-shabaab oo la wareegay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud dowladda Soomaaliya oo ciidamo geysay deegaano ay ku dagaalameen maleeshiyaad waa maleeshiyaad beeleed deegaano ka tirsan gobolka Mudug gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo fariin codsi u diray madaxweyne Dani Axmed Madoobe xoolo dhaqato fara badan oo laga dhoofiyo dekada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari wararka dibadda ee raadiyaha wadaagay Muqdisho caawidiyaha waxaa ka mid ah dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay dalka Bulgaria wadajirku waa wada noolaashuhu waa inaan la kala maarminna waa inay wax naga wada dhaxeeyaan wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg wadaag FM radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga wadaag FM wadaag radio wadaag FM waa habeenimo xada 6 bisha 9 sanadka 2020 warkaasina waxaynu hay wariyaheena Maxamed Ibrahim Axmed Dalnuurshe aad baad u mahadsantahay Nuuruddin Shardi bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada warkii oo fidsan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Isaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu ka hadlay sababaha dib loogu dhigay shirkii u dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya wariyaheena Nuuruddin Shardi ayaa warbixinta warkan si aan baqaaday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ugu warbixiyay xaaladda Jubbaland isagoo sheegay in wixii ka dambeeyay doorashada madaxtinimada Jubbaland ay soo martay xaalado kala duwan isla markaana dagaal dhinacyo badan taabtay ay ka dhaceen deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland waxa uu intaa ku diray madaxweynaha in khilaafki ka dhashay doorashada xal laga gaaray isla markaana hadda ay si wanaagsan wax u socdaan waxaana madaxweynaha hoosta ka xariiqay in wali isagoo tixgelinaya wada lahaanshaha deegaanada Jubbaland iyo sidoo kale xasuulinta siyaasadeed uu dib u dhigay dhismaha golaha wasiirada maamulka Jubbaland arimaha gobolka Gado ayuu Axmed Madoobe waxa uu sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in xal waara laga gaaro inta uu ku sugan yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho isagoona sheegay in gacanta Jubbaland dib loogu celin doono gobolkaas taas oo xushay in furo ay u tahay in xal kama dambeys laga gaaro khilaafka muddada dheer u dhaxeeya Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya arimaha doorashooyinka ayaa madaxweynaha Jubbaland waxa uu sheegay in shirarkii dhuusamareeb dadaal badan ay ku bixiyeen sidii go'aan loogu wada dhan yahay loo gaari lahaa balse balamihii shirkii dhuusamareeb 2 oo aan la hirgelin iyo sidoo kale xaalado kala duwan oo isbiirsaday ee sababtay in gabi ahaanba ay ka qayb galeen shirkii dhuusamareeb 3 ay lagu soo gabagabeeyay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug madaxweynaha Jubbaland ay sidoo kale waxa uu sheegay in Muqdisho uu yimid sidii xal kama dambeysha lagu gaari lahaa isagoo si gaar ah ugu mahadceliyay xubnaha aqalka sare uu sheegay in ay u dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loogu heshiin lahaa siyaasadda madaxweynaha maamulka Jubbaland oo hadalkiisii wata ayaa waxa uu sheegay in xilligan waxba aysan soo kordhin doonin haddii Muqdisho ay shir ku yeeshaan isaga madaxweyne Dani iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo isagoona sheegay in loo baahan yahay in loo yeero madaxweynayaasha Galmudug Koonfur Galbeed iyo sidoo kale kan Hirshabeelle si loo soo saaro war murtiyad wada jira waxaan idhaahdaa haddii shalay dhuusamareeb shirkii ahaa diidmadu ay ahayd nimanbaa ka maqnaa inaan annagoo saddex haddana intaan shirray hadhow maxamed taalo tiraadaan arday saddexdii qoyska ahayd baa haddana wax shirayse masiirka iyaga maa ka talinaya warkaasi war kale waay taas inaanan shir intaanu gallo saddexdeedu communique soo saaro nooca doorashada ka soo hadallo warqad kale aan soo saarayo waxay macno tiraysaa nooca shirku uu yahay iyo imaatinkaygii iyo waxoo dhan waxaan isla qaadanay markaa inayna saxayna madaxweynuhu waan joogaynaa xamar waa la yimid cid kama xigto madaxweyne marti baan kuu nahay intaa marka laga soo tago intii la doonaan joogaynaa xamar saaxiibadana ha loo yeero
haddaan wax kala tabanayna aan wada hadalno labada aqal ha la isu keeno golaha shacabka. madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dowladda federaalka ee soomaaliya madaxdooda iyo xubnaha dowlad goboleedyada dalka ugu baaqay in xilligan xal laga gaaro khilaaf xoogan oo u dhexeeya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka isagoona sheegay in khilaafka u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya uu sababi karo waxyaabo kala duwan islamarkaana dalka dib uu dhigaya waxaanu ku baaqay in dadaal dheeraad lagu bixiyo xilligan sidii laiskugu keeni lahaa labada aqal baarlamaanka soomaaliya xilligan guluf xoogan uu ka dhexeeyo. tahay labada gole wada shaqayn la-aantooda iyo waqtiga qaadatay wuxuu keenay in wax badan oo u yaalay wax laga qaban waayo oo jiitanku maanta uu halkaas soo gaaray. maanta waxaa laga yaabaa in aad laysu weydiinayay axmed iyo siciid iyo way yimaadeen shirkii dhuusamareeb mayna tegin talow maxaa lala iman doonaa maxay sabab tahay. shirka dhuusamareeb asbaabaa jiray. dhuusamareebtu wadahadal baan ka galnay prime minister baa ku jiray waxaan ku heshiinay guddi in la qabto wasiirka arrimaha guduhu uu guddidaas liid gareeyo. magaalada caasimada ee muqdisho ayaa qorshe u ahaa inay ku shiraan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne deni sidoo kale madaxweynaha jubbaland iyadoona madaxda ay hadda ay dalbanayaan in madaxda kale ee saddexda maamul goboleed ee ka maqan shirkan in lagu soo diro waxaana madaxweynaha jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha puntland kol hore ay ka hor yimaadeen shirkii dhuusamareeb 3 ee lagu soo gabagabeeyey magaalada dhuusamareeb kaasoo lagu heshiiyey nooc ay noqonayso doorashada soomaaliya ka dhaceysa taasoo madaxdu ay sheegeen in laisku afgartay inay noqoto doorashada ban taasoo ergooyinka xildhibaanka soo dooranaya ay gaari doonaan ilaa 301 ergo. maamulka galmudugna wax ay ka hadleen dagaalo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacaya deegaano hoos tago maamulkaasi. maalmihii lasoo dhaafay xubno ka tirsan dagaalyahanada xarakada al-shabaab ayaa weerar waxay ka geysanayeen deegaano ka mid a maamulka galmudug gaar ahaan deegaanka shabeellow oo ku dhow degmada bacaadweyn. sidoo kale maanta ayaa waxay weerar kale waxa ay ka dhaceen deegaano ka mid ah duleydka magaalada cadaado ee xarunta duleydka magaalada cadaado ee gobolka galgaduud waxaana weerarkaasi u dhexeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo dagaalyahanada xarakada al-shabaab. wasiirka warfaafinta maamulka galmudug axmed shire ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay guulo ay ka gaareen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug oo garabsanayo ciidamada dowladda soomaaliya. ardaygii galay kaalinta koowaad ee imtixaankii ee qaaday dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada kaasoo dhigtay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee jaabir bin xayaan ayaa waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan imtixaankaasi guusha uu ka gaaray. wariyaheenna nuuraddiin shardi ayaa warbixinta warkaasi ambaqaaday. wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta si rasmi u shaacisay natiijada imtixaanka dawliga ee laga qaaday ardayda dugsiyada sare ee dhammaystay sanad dugsiyeedka sanadka 2019 iyo sidoo kale 2020. tirada guud ee imtixaanka xarumaha uu ka dhacay ee ku yaala gudaha dalka soomaaliya waxay gaarayaan 114 xarun waxaana gashay 33727 arday waxaana gudubtay 25177 arday waxaana sidoo kale hartay 8550 arday. 10 arday ugu sareysa natiijada 5 kamid waxay yihiin gabdho iyadoona gabdhaha ugu sareeya ay gashay kaalinta saddexaad ee dugsiga sare. ardaydii kaalinta koowaad galay waxaa lagu magacaabaa Sayid Cumar Cabdiraxmaan Culaad waxa uu ka soo baxay dugsiga Jaabir bin Xayaan ee ku yaala degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir waxa uu ku gudbay buundo gaaraysa 92.43%. ardayga kaalinta labaad galay waxaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Ciise Siyaad waxa uu ka baxay dugsiga Axmed Gurey waxa uu ku soo baxay 92%. ardayga saddexaad waxaa lagu magacaabaa Sahra Cabdullaahi Abuukar waxay ka soo baxday dugsiga Mucasar Saynis waxa ayna ku baasay buundo gaaraysa 91.93. ardayga afraad waxaa lagu magacaabaa Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar waxa uu ka soo baxay dugsiga Mujammac Ibn al-Qura oo ku yaala degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir waxaana ku soo baxay 91.86. ardayga shanaad waxaa lagu magacaabaa Cabdinuur Xuseen Maxamed waxa uu ka soo baxay dugsiga Maxamuud Xarbi waxaana ku baasay buundo gaaraysa 91.86%. ardayga lixaad waxaa lagu magacaabaa Fardowso Maxamed Maxamuud waxa ay ka soo baxday dugsiga Waabari Gaalkacyo waxayna ku baastay buundo gaaraysa 90.43%. ardayga toddobaad waxaa lagu magacaabaa Fawda Daahir Cali waxay ka soo baxday dugsiga Al-Anwar sare waxayna ku baastay buundo gaaraysa 90.43%. ardayga sideedaad waxaa lagu magacaabaa Cabdifataax Cabduqaadir Axmed waxa uu ka soo baxay dugsiga Ablaal Gurceel waxaana ku baastay buundo gaaraysa 90.2%. ardayga sagaalaad waxaa lagu magacaabaa Safiyo Maxamed Nuur Maxamed waxay ku baastay buundo gaaraysa 90.14%.
boqolkiiba waxaana ay ka soo baxday iskuul lagu magacaabo bidiyo. Faadumo Axmed Cali ayaa kaalinta 7aad gashay waxayna ka soo baxday iskuulka Imaam Shaafici waxayna ku baastay 94 boqolkiiba. Shabakada warbaahinta wadaagay Muqdisho ayaa xiriir la sameysay ardaygii galay kaalinta 1aad ee lagu magacaabo Sayid Cumar Cabdiraxmaan Colaad oo ka soo baxay iskuulka Jaabir bin Xayaan ee ku yaala degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Sayid Cumar ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan galida kaalinta 1aad iyo sidoo kale dadaalka uu bixiyay imtixaankan dawliga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya qaadaysay. mahad iskale ilaahay waafajiya mahad iskale dareenkayga lama soo koobi karo ilaaha mahada iskale aniga waafajiya uma dhahna mar walba walaa ku rajaweynaa saxiib aad iyo aad ugu rajaweynaa ilaahay najaas uu yiri alxamdulillah wallahi hadda yani waxa aan dhihi karo walaha ay sameeyay malahan dadaal yar uu sameeyay ilaahay ugu waafajiyay inaan kaalintan galo waa yara dadaalay ilaahayna uu waafajiyay waafajinta ilaahay wuxuu ku dhahay qaabashada iskuulka Jaabir bin Xayaan qaybtiisa faraadrajiinka waxa ku daashay 2.4 كذا وحنا لها يعني كدلالان هذا كان في بلاوي يعني كدلالان أنا واحد دلال عن شيء كرو وعندي كرو مجرو لكن وحير وان يرد دلالي إلهي لو يوافقي الحمد لله. أرضية قبل كبنادر سنة كان نتيجة آد أيوه سيسي وحنا أنت أسكال لي وزير كوحبرشة الدولة الصومالية عبد الله جودح برة السكوش شيء إن أرضية قبل كبنادر نتيجة سنة كان آد أيوه سيسي إسلام كان أرضية كل رقم قبل الدلكة يشتوك لإسكولات ويا قبل الدلكة أي كتير بدنايين بوندهان وزير كوحبرشة dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sharaxaya sababta keentay in ardayda gobolka Banaadir ay ku liitaan imtixaanka sanadkan dowladda ay qaadaysay. gobolka Banaadir resultgiisu waa yar yahay maxaa yeelay waa magaalo weyn waxa saameyn ku yeelanaya amniga socdo waxa saameyn ku yeelanayo muxuu ahaa fursadaha badan oo jiro oo macalinka oo shaqo kale iska heli karo maadaama aan mushaar badan la bixin laakiin waxaan rajaynaynaa in magaalada gobolka Banaadir bal waxaan ay isku noqdaan oo wax madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ururada bulshada kala hadlay doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan deegaanada maamulka Soomaaliland. madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ee weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulkaasi ayaa madaxtooyada maamulkaasi waxay kulan ay kula qaateen ururada bulshada deegaanada maamulka Soomaaliland waxayna kala hadleen arrimaha doorashooyinka. warkii oo aad kala socoteen caawa warbaahinta wadaag media waa nagaynta.